tamarta Soomaaliya primarily la isticmaalo hadda waa waxa loo yaqaano diesel generated power oo mini grids aad bay runta u yartahay daraasaadii u dambeysay dhowr sano ka hor oo aan aragnay oo ay wasaaradda tamarta ay samaysay waxay ahayd waxaan filayaa 4600 oo megawatt inay Soomaaliya isticmaasho taasoo runtii wax aad u hooseeya marka loo fiiriyo caalamka iyo mararka qaarkood waxa laga yaabaa in tiradaas tira aad uga sarreysa in hal xaafado ka mid ah magaalooyinka waaweyn inay isticmaalaan shirkadaha Soomaaliyeed ay aad u dadaalayaan weli waxaad moodaa in ay aad runtii ay u hooseyso fursad badanna wadanka uu leeyahay bacdama qorraxdii aan ognahay wadanka qorrax fiican uu leeyahay aan ognahay wiinka wadamada caalamka ugu fiican waxaan u maleeyaa wadanka saddexaad oo caalamka ayuu soo galayaa markay noqoto dabaysha consistentiga oo xawaaraheedu u fiican yahay marka potentialka Soomaaliya dhanka enerjiga hadda aad u hooseeya hase yeeshee potentialkiisa aad u sarreeya Soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa ceelal la qodob ceelashaas oo insha Allah aan rajaynayno in Turkidu haddaysan wax kala dhicin sanadkan dabayaaqadiisa ama bilowga sanad soo socda ay soo diri doonaan riigii sameynayay riigii markuu yimaado muddo aan ka badnayn 90 ilaa 120 casho way ku qodi karaan hadday qodaanna waa la ogaan doonaa insha Allah meelaha shidaalka ay ku jiraan ceelasha ay ku jiraan cadadooda kadibna markaas waxaa loo gudbi doonaa diyaar garowgii markaa in wadanku uu noqdo wadan oil producing and production phase inuu u gudbi doono insha Allah marka future-ka Soomaaliya hadday noqoto shidaalka iyo gaaska iyo hadday noqoto enerjiyada kale oo kala duwan oo dhan runtii aad buu u sarreeyaa sababta baahida mar walba badan wadamo badan baa ayaa soo kobcaya oo u baahnaan doona ayadoo dadku qaar istadiyaashu qaar ay muujinayaan in oil and gas la gaaray mar hore peak wax loo yaqaano meesha u sarreysa ay declining ku jirto haddana mar walba waxa counter balance ku sameynaya baahida loo qabo in laga tanaasulo dhuxusha ku xisaabtan dhuxusha 100 milyan ku dhawaad oo oil equivalent ayaa maalintii la isticmaalaa sanad kasta 30 ilaa 40 power plants oo giga watt level ayaa ku soo biiray dunida kuwaasoo CO2gooda ama emissionkooda uu aad uga sarreeyo kuwa kale oo gaaska ku shaqeeya sida LNG oo kale iyo LPG iyo waxa la midka marka in general oil and gas Soomaaliya iyo energy-geedu kale wuxuu haystaa fursad qaaliya oo ummadda Soomaaliyeed ay sanado badan boqolaal sano ay ka faa'iidi doonto insha Allah caqabadaha oil and gas-ka petroolka iyo gaaska Soomaaliya ku gaadaaman iyo fursadahoodaba haddii aan soo koobo caqabadaha haddaan ku bilaabo runtii caqabadu waxay noqon karaan يعني إن maamulkii federaalka iyo maamul goboleedyadii aysan mar walba isku beej ka ahayn interestigan weyn oo ah dalkan inuu yeesho industry-gaasoo aanan siyaasad iyo midna ku salaysnayn waxaana waa natural resource-kuna waa wax ummadda oo dhan ay wada leedahay taa inaysan la siyaasadaynin oo haddii la soo saarayo sida ugu fiican loo soo saaro si transparency loo soo saaro inay jiraan guddiyo heer qaran oo heer federaal iyo heer maamul goboleed oo ka wada shaqeeya waa inay jiraan wax la yiraahdo in markiiba laga fakaro caqabadaha environmentiga imaankan oo la sameeyo wax la yiraahdo environmental impact assessment oo petroolka dhankiisa ku aadan hay'adaha iyo wasaaradaha ku hawlan lagu xoojiyo si looga hortago in biri kamaal spill uu dhaco taasi dhibaato ay noo keento wadamada sida Nigeria oo kale waxyaabaha lagu xasuusto oil and gas waxa in caqabad ay environmentigii ama ay baaadi ku noqotay iyo hadhowtii in la sameeyo wax la yiraahdo sovereign wealth fund oo in waxa ku dhici kara wax la yiraahdo hadii ka soo qaad shidaalka ilaa helo shidaalkii aad u badan yahay sanad qiyaasan insha Allah waxa ku dhici kara wax la Dutch disease oo kale oo hal industry inay aad u xoogaysato industriyada kale oo dhan hadii noqon kalluumaysigii beerihii tourismkii xoolihii inay burburaan oo ay wadanku u noqdo wadan predominantly oil and gas taasna caqabad kale ay keeni karto oo dhaqaalihii telecommunicationkii energy-gii kale sida korontadii inay burburaan oo aysan noqonin wax marketable ah suuqa istigaala marka taa waxa loogu hortagi karaa sida Norway oo kale ay sameysay markii ay heleen industriyada kale wadanka sidoo u burburin waxay sameeyeen wax la sovereign wealth fund lacag kasta oo ka soo dhacda oil and gas waxay ku dhacdaa hal account
oo ay maarata lama dad khubaro ah oo non party oo xisbiga ka tirsaneen ay maamulaan halkaas marka waxa lagu go'aamiyaa dawladdu budget soo gudbistaa budgetkaas waxa lagu go'aamiyaa marka mashaariicda dalka muhiimka u ah mashaariicda noqdo infrastructure haduu wadooyin noqdo haduu noqdo isbitaallo haduu noqdo maarata ciidamada mushaarka rayidka waxa soo dhan waa la soo gudbinayaa bangigaas ayaa noqonaya meesha inta lagu go'aamiyo lagu bixiyo iyadoo markaas qoondaysan oo la yaqaano exactly maalinta hadii ilaahay kalifo nimanka Turkida ay soo direen riiga la qodo oo la yiraahdo ceel la hubo field baa la helay ceelka uu kooda successful noqda fieldiga size-kiisa waxa lagu qiyaasaa 5 6 7 8 9 10 bilyan oo fuusta hadii la yiraahdo maalinkaas laga bilaabo xataa sida loo macaamilo maaragtaas ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed ee runtii isbedelaya World Bankiga iyo IMF to say kula macaamilada isbedelaysa markii qof automatically asset la tahay wadamadan hadda soo saaray shidaalka kulligood waxay ku khasbanaan doonaan inay ku yimaadaan ku yiraahdo OPEC ka soo qayb noqo si maaragtaa aan marketkii aadan u gilgilin oo aadan hoos u dhigin shidaalkaagu adaa hadda beecadaada ku galan kartaa darto hoos baad u dhigi kartaa